maalinkii labadii maalmood ay ugu naxdin badnayd adduunyo raadin baa halkaa loo galay waxay ahayd maalin New Zealand tagay Auckland magaalada la yiraahdo oo dabayaaqadii 98kii ahayd iyo maalin aan London tagay oo 2 ahayd labada maalmood bay ugu naxdin badnaa London markaan tagay 700 oo gabdhood oo 14 ilaa 19 years u dhaxeeya oo meel ku xareysan oo dhammaan afarta xaraf qabaan u tagay oo Soomaaliya afarta xaraf ma taqaan fooletaska saddex uu ku bilowdaa afarna uu ku dhamaadaa HIV markuu dalaca maxaa la yiraahdaa plus ku darmado imisa xaraf uga koobma imisa leetawi afar waay afarta xarafkaasaan uga jeedaa 700 oo 14 ilaa 90 years u dhaxeeya oo xanuunka wada qaba Auckland waxaan ku arkay ilaa 50 dhalinyaro oo Soomaali ah baa waxa la igu yiri markaan tagay train station kay joogaan oo habeenkii ku caweysimaan waan u tagay waxay Soomaali soo matiin waxay dhaheen mani ومحتين جامايكان بانايد جامايكو كفانية والله شيء كيستم هاي يفكر اللي فوق الصومالي والرابش بيبل بيقول هذا الصومالي والرابش بيبل كجدة ذا تشوجا الصومالي النمدي كفانا يكوسيت على محمد مرة نزار